بسم الله الحمد لله ثم الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحلقات كان كجرني القصص القرآني دروستا إيو وحيالها لقا قادنا عبرتا يان كجرني حلقاتنا وحينا ونغنيسا حلقات كو إتبناد حلقات طبناد جوغني حلقات وحلقة أرين كله وقرآن أنك فهمينه خاصة سورة بقرة أنك فهمينه أو قصة كم قصص كقرآن كسورة دانو كسو أروري حلقة وحن كجهل دومنا إن شاء الله أمد ذل النمام مركز تكجت مت وذل النمام ذا كهب ستي oo dulanimada jirkooda ka mid noqday oo aad u rafaadsan oo dhinac kasta ka burburay waxay ka burbureen dhinacii akhlaaqda waxay ka burbureen dhinacii maxaa la yiraahdaa dhaqaalaha waxay ka burbureen dhinacii siyaasadda waxay ka burbureen dhinac kasta oo bani aadanka asaaska u ahaa ka baaba'een ummaddaas marka macnaheedu waxa ummad aad daciif u ah oo dhulka taalo quraankeena marka wuxuu nooga dhigay namuudaj iyo nooga dhigay ama tusaale asagoo ujeedadiisa ay tahay inaan ka faa'iideysano oo arrimaha noocaas oo kale dacfiga noocaas oo kale markuu dhaco sidee loo daaweyn karaa marka qasaskaas uu Ilaahay noo sheegay qisadaas oo noo soo qaatay namuudajka ah Ilaahay markuu sheegay quraankiisa ka hadlay waxay ahayd qisadaas alam tara ila al-mala'i min bani israa'iila min ba'di Muusa إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال قالوا إن كان شعور دلق مركو كبتي دريمين waxay go'aan gaareen inay iska qaadaan dulinimadkii waxay go'aan gaareen inay dhaqaalahooda dhistaan waxay go'aan gaareen inay isnadaamiyaan waxa soo dhan ay go'aan ay gaareen go'aamada noocaas oo kale marka la gaaro waxay u baahan tahay arrimaha qisada aan ka dhex fahmi doono laakiin dadkii mushkilada haysatay mushkiladii horta dareenkaas waa ku dhashay laakiin dareen markuu ku dhasho mushkiladii way dareemeen laftigeeda dhinac daawo ay ka tabilowga hore laakiin sidee loo hirgelinaa mushkiladaas xalkeeda aad u dhib badan dhibkaas markii yaa sameyn kara qof kasta ma sameyn kara marka waxa sameyn kara ummadan arki doogno ama ayagii laftigooda la kala sifeyn doona qolooyinka noqon doona xulka yaa dhibka ka saari doona ummadaas marka anaga marka waxyaalahaas aan ka faa'iideysanayna xulka sidee lagu soo soocay sidee lagu soo xushay talaabooyinka la soo maray waa waxa qisada aan rabnay inaan ka faa'iideysano qodobka koowaad waxa waaye oo qisada ku jiro marka koowaad waxay yiraahdeen annaga hadee nimana na gumeystaan nimana na dhibay dagaal hana lagu waajibiyo ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله إلهي وددي سنكون دقالمين إرادة النبي أيساس لهين ورسدين النبي سؤال ورسدوه وحير هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا مركا قوان قفك مركو قارو waa laga xaqiijinaa waxa la yiraahdaa diyaar mootiin idinka hadhowdii amad galab noqotiin hadhowdii amad fuliyoodiin ma yiraahdeen maalana alla nuqatil fi sabilillah waqad ukhrijna min diyarina wa abnaa'ina yaana illadii waxay sheegeen oo ilaahay u warsadeen alqital fi sabilillah arintaas markay dhacday sida marka fiiriya marka ana waxyaalaha oo annaga hadda aan ka rabna meesha waxa waaye sida dadka xulka sidee lagu heli karaa
kow hadday bilaabatay dadka in la kala sooco marka si loo gaaro dadka raggan ummadan hoos ducfiga ku dhacay awood ay u heli lahaayeen, ummadan dhaqaalaha ka baaba dhaqaale ay u heli lahaayeen, ummadan wax kasta ka baaba ay xurriyad ay u heli lahaayeen. in kutiba calaykum alqitaalu an laa tuqaatiluu qaaluu wamaa lana an laa nuqaatila fii sabiili illah falamaa kutiba calayhim alqitaal tawallow ilaa qaliil. qarbalada koowaad ama shaqshaqa koowaad ama filtaraha koowaad wuxuu noqday, waxaa la yidhi waa laydinku waajibiyey dagaalka alqitaal fii sabiili illah. intaas markuu ilaahay uu yidhi subxaanahu watacaala, nimankii marka qeyb ka mid oo markii hore xamaasadda un qaaday yaa meesha ka baxay. ummad taqyiirkeeda hadal ma ahan, warna ma ahan, waxay u baahan tahay arrimay u baahan tahay oo haddaba uu sheegi doono ilaahay qisada uu ku dhex sheegi doono. wax yaraa soo haray marka, nus amalba qaliila soo haray qur-aankii nusba ka badan. tawallow ilaa qaliil. arrinta markay meeshaas gaartay, kistas nuqbadaas ay soo hartay, yaa haddana nuqbada laftigeeda weli la rabaa in lasii kala miiro oo lasii kala saaro oo lasii kala filtareeyo. falamaa kutiba calayhim alqitaal tawallow ilaa qaliil. markaasaa waxay yidhaahdeen qaliilkii hadlay, wuxuu yidhi annaga waxaan rabnaa qofna hogaamiyo oo cilmigaas qitaalka yaqaano yaan u baahannahay. markaasaa waxay yidhaahdeen markaasaa marka ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu watacaala nabigoodii isagoo nabiga sheega waxyiga isagoo kusoo degaa, markaasaa wuxuu yidhi nin la yiraahdo Taaluut yuu ilaahay idiin soo saaray. kutubta marka Taaluut wax badan ay ka sheegaan, sida qur-aanka sheegayana waa nin u qalme oo cilmi leh, shuruudaha qaa'idka ama hogaamiyaha laga rabo yuu oofsaday ninkan. ilaaha doortay subxaanahu watacaala. laakiin bani aadanka u fiirso, bani aadanka cajaa'ibtay leeyihiin. waxyaalaha horumarka dadka ka reebay ka mid tahay, waxyaalaha dadka daciifka ka dhigo ayay ka mid tahay. hadallada hadda ay ku hadli doonaan dadkan waxay yidhaahdeen, marka saas uu yidhi nabigii, isla markii wax lagu magacaabo xubu ri'aasa yaa horta gashay, oo waxay yidhaahdeen madaxnimo jaceyl ay horta gashay. annaa yakuunu lahu lmulk wa naxnu axaqu bilmulk. haddee waxay go-aan gaareen oo yidhaahdeen waa qaliilkii oo kuwii hore ka soo haray, annagaa ka mudan, asaga sidee u dhici karta? maba dhici kartaba ninka noocan oo kale ah oon waxba haysanin, faqiirka ah oo sidaan ah oo ma aragta yacnaa waxyaalaha bani aadanka ay isku xaqiraan waxyaalihii ayay ku keeneen. marka meeshaas marka waxa waaye waxay daliil u noqonaysaa iyada in bani aadanka cajaa'ibkaas uu leeyahay. halkaas waxaa noogu dhammaaday xalaqadii 11.